waayo ma samaysmay haddii tala fiican timaado waa hubkii loo samaystay in lagu dilo seedi in lagu dilo sodog in lagu dilo abti in lagu dilo inaabti hub aad u khariban buu ahaa ilaahay baa mahadle hadduu maanta soo gabagaboobay maanta waa maalin qaramaynihii hore ee aanu qaadanay ka duwan waxaanan u mahadnaqannaa bogaadinanaana dadweynaha maxamed sacad oo maanta soo diyaariyey dhiibayna hubkii iyo ciidankii madaniga ahaaba hubkani wuu ka duwanaa iyo wareejintani way ka duwanayd intii hore loo soo wareejiyey hubkan la wareejiyey iyo ciidankan la wareejiyey waa ciidan muddo hore samaysmay oo ku samaysmay talaxumo ka timiday inta ku nool qayb ka mida degmada Ceelaf Weyn waayo ma samaysmay haddii tala fiican timaado waa hubkii loo samaystay in lagu dilo seedi in lagu dilo sodog in lagu dilo abti in lagu dilo inaabti hub aad u khariban buu ahaa ilaahay baa mahadle hadduu maanta soo gabagaboobay reerka soo dhiibayna ee arrintaa dhinacooga ka soo afjarayna aad iyo aad baan ugu bogaadinanaa reerka hadhayna waxaan leenahay idinkuna qaata raganimada inkastoo laydinka horreeyey oo laydinka hor qaatay guushii dhib ma lehee ka daba yimaadaan leenahay Ceelaf Weyn dadweynaha ku nool oo afka dawladda iyo afka madaxweynaha ku hadlaya in wax loo qabtaa oo halkan in badan kaga dhawaaqday waxay ku xidhan tahay dadweynaha degmada Ceelaf Weyn siday iyagu gacanta isku qabsadaan bay ku xidhan tahay hadday nabadda qaataan oo ay walaalnimadii ku soo noqdaan oo ay gacmaha isqabsadaan waxaan annaguna ballan qaadannaa in wax alla wixii ka habsaamay ee ka baaqday ee horumar ahaa in dawlad ahaan aan ku dadaallo haddii ilaahay yidhaaho dhibaato colaadeed oo sokeeye oo degaani markay dhacdo dhibta ugu badan waxay ku dhacdaa marka hore haweenka iyo carruurtay ku dhacdaa nabadi markay timaadana cidda ugu badan ee faa'iidadeeda hesha ku noolaataa waa haweenka iyo carruurta iyo dhallinyarada gabdhaha halkan jooga waxaan leeyahay ragga ducadiisii way iska yaraatee duceeya in degmada Ceelaf Weyn ilaahay nabaddii u soo celiyo oo dadkoogu isjeclaadaan si laydin gartay idinkana aanu nahna gabdhaha maalintii duceeyey ilaahay waxaan ka rajaynayaa ducadaasina ay hana qaado guddida nabadaynta ee Ceelaf Weyn joogta waxaan leeyahay annagu waa u adkaysananaaye adkaysta hadday inagu raagta ka tegi mayna ilaa nabadda Ceelaf Weyna ay halkii ku soo noqoto ay ka dhaqaaqday waa goor gaaban waa qorax ilaahay waxaan ka baryaynaa waa kaliil in ilaahay samada inaga arsaaqo oo raxmadiisa inoo liso ilaahay baan ka baryaynaa allah inaga aqbalo dhammaantiin waxaan intayna halkan joogta iyo intaynaga maqan Ceelaf Weyn iyo gobolka Sanaagba waxaan leenahay muddadii aan joognay waan idinla joogi doonaa nagamay dhammaanin waad ku mahadsantihiin sidii aad wax noola qabateen ee aad u dadaasheen aad noo soo dhowayseen inta ka hadhayna waad dhammaystiri doontaan waxaan halkan ka xusayaa miishaarta oo magaciisa Cabdiqaadir Cabdisaaq baa la yidhaahdee isnaguna aad u dadaalay maalmihii adkaa ee hubkan iyo qaramayntan la rabay in la sameeyo oo dadka aad ugu taageeray cid walbana ka qayb qaadanayay sidii u boorin lahaa dhammaantiin waxaan ka rajaynaynaa inaynu gacanta isqabsanno oo aan sida boodhkaa ku qoran qabiilkii guurno oo aynu qarannimo u guurno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa markay tan inoo dhammaato safarkayga dambe inaannu la nimaadno wixii mashaariic aannu u sidno Ceelaf Weyn iyadoo nabada laagiin dadweynaha Ceelaf Weyn inta halkan joogta iyo inta kaleba waxaan leeyahay war gacmaha isqabsada oo nabadda ilaaliya nabaddaan wax ku nahay
nabad iyo caanaa laydhaa col iyo abaar baa laydhaa ilaahay col iyo abaartii inta haynaga ekaysiiyo aad iyo aad baad mahadsan tihiin dhammaantiin